daawada qaybta labaad wararka waxaa la dhinaca dulansiada caalamka waa November 9keedii 2021 sanadku dabcan wararkii Trapeelka hadawashana qiimaha leh barnaamijkeena behind the scenes ayaan ku ogaanay waraaqo iyo dokumentiyo badan oo cadeynaya dambiyadii uu dalka ka galay markaasi Soomaaliya sarkaalkii labaad ee ururka ciidamada Amazon ka socday ayadoo sidoo kalena ay horfadhi media xoga dheeraada ay ogaatay barnaamijkaasi waxa ku jira macluumaad aad iyo aad u badan isla markaana maalmihii ugu dambeeyay waxa socday olole ay warbaahinta reer galbeedka iyo warbaahinta ay wadeen oo ay ku muujinayeen in ninkaasi laga khaldamay ama lagu khaldamay oo ay ahayd degdeg dawladdu samaysay laakiin dambiyada ninkaasi iyo waliba xogaha horfadhi media ogaatay waa kuwa cajiib kana daba tagaya dhammaan warbaahinta Kenya Uganda iyo waliba dabcan warbaahinaha kale ee ayaguna u xaglinaya xaggaasi luqadoodana lagula hadli doono faafinta laakiinse barnaamijka waa muhiim barnaamijkaasi gaar ahaan inaad gelisaan baraha bulshada iska mid tahay Twitterka oo aad si weyn ku faafisaan daawadashana Soomaaliyeed qiimaha badan ee aan ku bilaabo qaybtan dalka Algeria madaxweynihiisa ayaa ku dhawaaqay in bisha March lagu qaban doono magaalada Algiers ee xarunta dalka Algeria shirweynihii Carbeed ee taariikhiga ah kaasoo la mid noqon doona shirkii 2002 lagu qabtay magaalada Beirut wuxuuna sheegay in shirkan uu kaga duwanaa doono shirarka kale saddex qodob waa qodobka koowaad ee shirka waxaa diiradda lagu saari doonaa dib u soo nooleynta qadiyadda Falastiin ee Carabtu ay ku kala dhuumatay iyo in sidoo kale kor loo qaado ayaa la dib u habeenta ururka jamcadda Carabta oo magacuyaal noqday iyo saddex in la hagaajiyo cilaaqaadka wadamada Carbeed isagoo war qoraal soo saaray Abdelmajid Tebboune madaxweynahaas oo haatan u dhila dhaansaday in uu cilaaqaadka iyo awoodda Algeria uu bilo ee uu caalamka ku lahaa iskar ahaan dalalka qaaradda Afrika ama ururka midowga Afrika iyo jamcadda Carabta ayaa waxa uu sheegay in tafaasiisha oo dhan la heli doono bisha March qorshuhu wuxuu ahaa in Maarsadii hore la qabso ayuu ama bisha saddexaad ee hore sanadkii hore la qabto laakiin la ajliga xanuunka faafaha daran ee COVID-19 ee dunida halakeeyay ayaanu dib ugu dhignay ayaa lagu yiri warka qoraalka sidaa daraadeed waxaanu martigeliyeynaa shirka jamcadda Carabta waxaanu dib eegis ku sameeynaa qorshihii loo yaqaanay qorshihii hindisihii Carabta ee nabadda ee loo yaqaanay The Arab Peace Initiative kaasoo ahaa qorshe ay soo amaamuday dawladahaasi gaar ahaan ay garoodeen ka ahayd boqortooyada Saudi Arabia markii lagu kulmay 2002 magaalada Carabta ku taala dhulka Sham ee Beirut halkaasoo lagu xiray Israa'iil in ay aqoonsato isla markaana fasaxdo dal Falastiin ayadana ay cilaaqaad diblomaasiyadeed ay la soo bistaan dalalka Carbeed laakiin si arrinta iyo kusoo beegmaysa iyadoo dalal dhowr oo Carbeed ay safaf dheer u galeen inay la heshiiyaan ama ay ayagu soo dhaweystaan ayaa la yiri Israa'iil oo heshiisiyo markaasi Trapeel ay la galeen halkan nagala socotaan wararkii wacala dhinaca diblomaasiyadda dawladda oo dhan dabashana qiimaha leh caalamka xogihii ugu dambeeyay dawladda koonfurta Afrika ayaa si weyn u beenisay war ku saabsan in mooska Soomaaliya laga helay markaasi bakteeriyo ama xanuunka bakteeriyada caloosha ku dhacda ee loo yaqaan H pylori ayadoo war qoraal soo saartay waaxda dhinaca markaasi u qaabilsan beeraha dhulka iyo hagaajinta iyo horumarinta reer miyiga ama waaxda loo yaqaan the Department of Agriculture, Land Reform and Rural Development ee loo soo gaamiyo DALRRD ayaa waxay beenisay in war lagu qoray mid ka mid ah website-yada dhinaca caafimaadka webmd.com la yiraahdo ee dalka koonfurta Afrika uu sheegay in mooska ama muuska laga keeno Soomaaliya laga helo markaasi bakteeriyada loo yaqaan H pylori oo ah bakteeriyo qofka caloosha kaga dhacda taasoo keenta xanuuno ay ka mid tahay markaasi dibiro iyo waliba in ay sidoo kale saamayso dheefshiidka qofka ugu dameyntana haday muddo badan ku sii maqnaatana dhalisa xanuunka kaankarada ee caloosha ku dhaca ayaa beenisay warkaas war qoraal oo soo saartay waaxdaasi u qaabsan beeraha ayaa lagu yiri waaxda dhinaca horumarinta beeraha dhulka iyo wax ka bedelka horumarinta dhulka iyo beeraha iyo sidoo kale horumarinta reer miyiga waxay cambaareenaysaa sida ugu badan ay u diidan tahay wararka been abuurka ee laga faafiyay mooska Soomaaliya kaasoo ku aadan in mooska Soomaaliya uu bilaysan yahay ayaa lagu yiri waxaan mar walba ay waaxdu raacaysaa sharciga qaanuunka dhigaya ayaa la yiri xaqiijinta caafimaadka iyo badqabka cuntooyinka dalka soo galay kamid tahay mooska ee sanadkii 1983 ee nambarkiisu ahaa 36 gaar ahaan kii kale la sii cusboonaysiiyay ilaa 1983 ee ahayd xaqiijinta badqabka iyo caafimaad qabka cuntooyinka waddanka soo galaya marka ay soo gaaraan ayaa la dekedaha dalka oo la hubiyo si taxadar leh loo fiiriyo isla markaana la mariyo dhammaan baaritaanada ayaa lagu yiri waxaa mamnuuc ah in cuntooyin ay la socoto xayawaan dhacay kuwa markaasi
qaba cudurro iyo kuwa laga heli karo suurtagalnimo inay dadka dhibaateeyaan in la soo gaarsiiyo dalka. waxaana la sheegay in mooska Soomaaliya uu kamid yahay moosaska markaasi ugu caafimaadka badan. warbaahinta Horfadhi Media ayaa ka sugaysa jawaab aanu u dirnay wasiirka wasaaradda beeraha ee Soomaaliya mudane Siciid Xuseen Ciid in uu asaguna tafaasiil dheeraad ka bixiyo arrintaas. laakiin barihii ugu dambeeyay ayaa Soomaaliya waxaa lagu soo qaadayay weeraro dhinaca markaasi cuntooyinka iyo dhoofisa mar ayaa jaamacad ku taala dalka Britain waxay dhaleeceysay wax soo saarka badarka Soomaaliya ayadoo sheegtay in xanuunka cagaarshowga iyo xanuuno kale laga qaadi karo ama lagu sumoobi karo, taasoo ugu dambeyntii noqotay ololaha la doonayay in Soomaalidu ay ka jeesato dalagyada isla markaana ay u jeesato dhanka baryada iyo tuugmada hay'adda WFP. halka dagala socotaan wararkii wacala dhinaca dulanseeda dunida dhan dabashana qiimaha leh dabcan xogo waaweyn bay noo soo socda oo Trapela ee ninkii ahaa qareenka ee muslimka ahaa ee Kenya dalka Kenya lagu la'aa ayaa ugu dambeyntii la soo badbaaday si qoysku sheegayaan. Professor Hassan Nandwa waxa la waayay ayaa la yiri maalmihii hore ee Isniintii hore kadib markii qoyskiisu ay sheegeen in uu markaasi uu ahaa nin dhibaato xooggan ay u geysteen ama isku dayeen dad afka. haatan waxaa la sheegay inuusan weli afkiisa kala furin isla markaana uu eeg yahay qof la handaday oo qaba markaasi jigo dhinaca markaasi nafsiga. si kastaba ha noqotee sida uu wiilkiisa sheegay oo la yiraahdo Al-Miqdad Hassan waxa uu sheegay wargeyska Nation in uu aabihii u eeg yahay inuu jir ahaan uu caafimaad qabo laakiin nafsi ahaan uu arintiisu xun yahay. wuxuuna soo gaaray Mwingi deegaankiisa isaga oo markaasi bad qaba sida ay sheegayaan xubnahaasi. si kastaba noqotay waxaa la sheegay in nin ay saaxiib ahaayeen oo la yiraahdo Eljifa Piwari weli isaga la yahay kaasoo la sheegay in isaga iyo xubno kale oo la socda oo u socday xaafadda Islii ee magaalada Nairobi dalka Kenya la qafaashay. hay'ad u qaabilsan arrimaha dhinaca qareemada dalka Kenya oo la yiraahdo Law Society of Kenya LSK ayaa waxay sheegtay in ay u muuqdaan in shirkado dhinaca amniga ah ay dadka ugaarsadaan. dalka Kenya ayaa barihii ugu dambeeyay oo dadka muslimiinta caanka ah lagu ugaarsanayay mararka qaarkoodna waa la afduubanayay iyadoo mar dambe la soo deynayay kuwaas oo loo maleynayo dadkaasi in dhibaatooyin xooggan ay mar walba ay u geysanayaan dad yoogaasi ayaa la yiri imaanaya sida Trapelka. halkan nagala socotaan wararkii wacala dhinaca dulanseeda dabashana qiimaha leh fare kama qodna xogaha waaweyn ee dunida iyo wacalaha mar walba daawadayaashana qiimaha badan ee haatan aan fiiriyo ninkii argagixisada ahaa ee ugu argagaxisanaa sanadkan hadeerto sanadii ugu dambeeyay waa ninkii dhibaatadii ugu weyneed geystay hal shakhsi oo 50 qof isku meel ku dilay isku mar saacado gudahood ayaa waxa uu dalbaday in uu ka qaado doono raacfaan dilkii xabsigii lagu xukumay. waa ninkii magaalada Christchurch bishii Maarso 2019 51 qof ee muslimiinta ku dilay ee cibaadeysanayay maalin Jimcaha halka 40 kalena uu dhaawacay markii uu weerar ku qaaday masaajid ku yaala magaalada Christchurch oo la yiraahdo Al-Nur iyo masaajid kale ku yaala xarunta loo yaqaan Linwood Islamic Center ee magaalada Christchurch. haatan la taliye dhinaca arrimaha markaas dacwadaha ayaa ku dhawaaqay in uu raxfaan ka qaadanayo xukunka lagu riday Brenton Trent oo ahaa nin ka socday oo cadadka sareynta cadaanka aaminsan ee Australian ah kaasoo ku soo duulay muslimiinta kaasi ku cibaadeysanayay isla markaana isagoo barta Facebook toos u tabinaya musiibo marsiyay dadkaasi isla markaana laayay. Tony Ellis ayaa u sheegay idaacadda Radio New Zealand in ninkaasi uu mudan yahay in xuquuqdiisa aan la jabin. wuxuu yiri malka dhac ayaa lagu sameeyay xuquuqdiisa gaar ahaan shuruucda loo yaqaano the Bill of Rights wuxuuna sheegay in ay taasi tahay in dib loo fiiriyo isagoo sheegay in uu haatan ogol yahay inuu ka qaato raacfaan arrintaas. markii hore ee maxkamadda la soo taagay ma uusan diidin kamana la xilaaxan dambiyada uu geystay iyo xasuuqa argagixisanimo ee uu geystay dadka muslimiinta ah ee Jimcaha cibaadeysanayay. wuxuuna qirtay dilka 51 ruux iyo dhaawacidda 40 kale dalkaasoo dadka qoysaskan ay maqlayeen markii uu qiranayay dambiga weyn ee uu geystay. wararka Trapel dabashana qiimaha leh ee haatan aan fiirino dalka Masar ayaa waxa uu sheegay iyaga iyo dawladda Mareykanku in ay ka wada hadlayaan oo wada hadallo heer sare ah oo ay ka qayb qaadanayaan tobanaan diblomaasi ay ka soconayaan magaalada Washington ee xarunta dalka Mareykanka. waa wada hadalladii ugu ballaadhnaa tan iyo sanadkii 2015 ay yeeshaan dhinacyadu.
oo ku aadan wax loo bixiyay wadahadallada istiraatiijiyadda iyo arrimaha dhinaca heshiisyada ee labada dal ee u dhexeeya. war qoraal oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka ama waaxda arrimaha dibadda dalka Mareykanka ayaa lagu yiri intii lagu guda jiray wadahadallada bilowga ah ee u dhexeeya xogayaha dalka Mareykanka Anthony Blinken iyo waxaa la yiri iyo dabcan dhigiisa dalkaasi Saamix Shukri waxaa dib u eegis lagu sameeyay heshiisyadii heer caalami kuwii heer gobol kuwii xuquuqul insaanka iyo wadayntii kor u qaadista dagaalanka arrimaha waxaa la yiri musuqmaasuqa iyo dhaqaalaha iyo waliba arrimaha dhinaca garsoorka amniga waxbarashada dhaqanka iyo waliba waxaa la yiri arrimaha kale la xiriira. Ned Price waxa uu sheegay in arrimaha waaweyn sida weyn looga wada hadlay ay kamid tahay mahadcelin markii horeysa oo Blinken u diray dowladda Qaahiro oo uga mahadceliyay taageeradeeda xasriinta gobolka ay ku jirto baa leeyahay qadiyadka Falastiin iyo Liibiya waxaana loola jeedaa in ay mar walba ee dalka Falastiin ay dilaasho Al-Qaahira taasoo mar walba u loogta lugahana u qabata Israa'iil si kastaba ha noqotee arrimaha waaweyn ee dunida laga filayay gaar ahaan maamulka Biden ayaa ahaa in uu Cabdul Fattah al-Siisi meel ka saaro xuquuqul insaanka uu ku timanayo iyo dadka sida wararta isugu xirayo kuwa la dilayo inta guryahooda loogu daato iyo waliba cadaadiska warbaahinta iyo cid walba uu saarayo balse waxa uu eegin arrimahaas inaysan noqon doonin kuwo markaasi wax weyn noqda. Saamix Shukri ayaa dhankiisa wuxuu sheegay in dowladda Masar ay diyaar u tahay inay mar walba caawiso Mareykanka isla markaana lagu caawiyo arrimaha dhinaca wuxuu siyaasadda dhaqaalaha iyo kor u kaca heer bulshada dalka Masar ayuu sheegay inay u diyaarsan yihiin wax la qaybsadaan Mareykan sida daraadeedna ay sii wadi doonaan arrimahaasi. Jaamacadda Carabta ergeyga labaad ama xubinta labaad ee ugu sareeyana waxa uu ku dhawaaqay inay wax tar yeelanayso haddii uusan daahin oo hadda iscasilo ayuu yiri sarkaalkii warka qayla dhaantu ka dhalatay dhaliyay ee isagoo wasiirkii warfaafinta ee dalkaasi ahaa. Ku-xigeenka jaamacadda Carabta ama xogayaha jaamacadda Carabta ninka ku xiga walaado Xisam Sak ayaa shir jiraad ku qabtay magaalada Beirut kadib markii uu soo dhameystay kulamo uu la yeeshay madaxweynaha dalkaasi Lebanon iyo ra'iisul wasaare ayo waliba afayeenka baarlamaanka ayuu saddexda xubnood wuxuu sheegay inuu kala hadlay sidii loo dadajin lahaa iscaslaada Mr. Kordahi oo asagoo ahaa wasiirka warfaafinta ee kiciyay ladka culusaaday iyo waliba khilaafka xumaaday ee dalalka khaliijka oo Sacuudigu hogaaminayo iyo dalkiisa Lebanon. wuxuu sheegay inuu Najib Mikati madaxweyne Mishaal Cawn Najib dabcan waa ra'iisul wasaaraha iyo afayeenka baarlamaanka Nabih Berri intaba uu sheegay in ay muhiim tahay arrintaas haddii ay run noqoto way hagaajinaysaa cilaaqaadka dalalka kalena way cadaadiska way kala noqonayaan ayuu yiri dalkaasi isagoo markaasi door xulayay in arrintaasi ay noqon karto mid muhiim ah. Madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Barack Obama ayaa kula shiray magaalada Glasgow dhalinyarada da'yarta ee u dagaalamaysa cimilada sii kululaanaysa dunida wuxuuna u sheegay in cadadooda ku aadan ka hortagga cimilada isbedelaysa ay si laba jibaaraan. Waxa uu sheegay da'yarta inay u diyaar garoobaan marka qaarkood inay wax ka tagaan iyaga lafkoodu oo ay marka ay noqoto arintu ay wax ka tanaasulaan laakiinse wuxuu sheegay inay ku adkeeyaan dadka siyaasiyiinta oo uu sheegay inay ku xisaabtamaan cimilada sii dagaalamasa wuxuu cambaareeyay talaabooyinkii madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Donald Trump oo ku yasay arrimaha dhaqdhaqaaqa ku aadan cimilada isbedelaysa iyo sayniska isagoo sheegay inay had khaladaad aad u weyn oo ninkaasi u geystay. Si kastaba ha noqotee waxa uu ugu baaqay da'yarta inay iyaguna midnimo ay muujiyaan. Dalka Poland qodobka ugu dambeeya kaga tagay way dabcan dalka Poland waxa uu kumanaan askari u geeyay xuduudda ula wadaaga dalka Belarus halkaas ay ku soo qulquleen ama ku soo jabeen kumanaan qof oo magangeliya doona kuwaas oo ka kala yimid wax loo maleynayo dalalka Asia iyo bariga dhexe sida ay sheegayaan warar. Dalka Poland ayaa 12,000 oo askari u diray gobolka kadib markii lagu eedeeyay dawladda Belarus inay ka argoosanayso dalalka reer Yurub isla markaana halkaas ay ku soo daabulayso kuna soo fasaxayso dad ay fiisayaal soo siisay oo markii hore dalkeeda ay soo gelisay kadibna ay ku sii deysay qaaradaasi. Dalalka Poland iyo Latvia ayaa waxay ka cabanayaan dhaqdhaqaaqa madaxweynaha kakan ee dalkaas Alexander Lukashenko kaasoo cunaqabatay in aad u xunay saarayeen dalalka reer Yurub kadib markii uu wariyay uu ka qaashay diyaarad dhan dabadeedna lagu adkeeyay isaguna wuxuu soo daayay kumanaan kun oo qof. Muuqaal laga soo duubay xuduudda labada dal ayaa la arkayay iyadoo booliisku ay ka hortagayaan dadku inay socdaal iyo siqitaan ku soo sameeyaan xuduudda. Dad sida hirka u soconaya ayaa ku soo socday wadada weyn ee dhinaca xuduudda ee dalalkaasi. Qaybta dabashana qiimaha saddexaad qateen